toddobaatan qof ayuu nolosha ku kariyey weliba hortiisa ku bislaaday waxa uu geystay xasuuqii ugu badnaa abid waxaanu gaadhay heer dadku u maleeyaan in la joogo gabagabadii dhammaadkii dunida bartamihii qarnigii 12aad ayuu ku dhashay meel ka mid ah Mongolia aabihii oo ahaa hogaamiye qabiileed maadaama Mongolia xilliga ay qabiilo qaybsanayd ayaa dagaal ku soo qafaashay haweeney kadibna guursaday taasoo dhashay dhiig yacabkan waxaana loo bixiyay Timochin oo macnihiisu yahay kii birta ahaa aabihii waxa uu lahaa xaas kale oo 2 ilmood u dhashay hooyadii waxa ay dhashay isaga 4 kale nolol xoolo dhaqataa ayuu ku koray isagoo yar ayaa aabihii la sameeyay oo uu geeriyooday xilliga kadib waxa uu bilaabay inuu hooyadii iyo walaaladii ilaaliyo ugaarsade miyiga galo oo aad xoogan ayuu noqday waxa uu ahaa mid aad looga cabsado xilli ay ugaarsanayeen isaga iyo walaaladii ay wiil aabihii dhalay cunto isku qabsadeen kadibna waa uu dilay waanu fakaday kadibna waa la soo qabtay balse waa uu ka baxsaday mar kale nolol adag ayuu ku koray waxa uu soo aaday dhulka Shiinaha halkaas oo adoon ahaan ay boqortooyo u qabsatay dhibaatooyinkaas oo dhan isagoo ka hooseeya da'da 20 sano ayay ku dhaceen Timochin waxa uu ka soo baxsaday adoonnimadii waxaanu yimid dhulkiisii Mongolia waxa uu bilaabay inuu qabiilkiisa hogaamiyo noqdo kadibna uu mideeyo dhammaan qabaa'ilada Mongolia waxa uu noqday hogaamiye laga baqo waxa uu la baxay magaca caanka baxay ee Genghis Khan taariikhyahanadu waa isku khilaafeen macnaha magaca Genghis Khan balse waxa intooda badan isku raaceen inuu la macno yahay boqorka boqorada ama loola jeedo hogaamiyihii dunida Genghis Khan waxa uu sameeyay boqortooyadii Mongolia waxa uu ciidan u kala diray jiha kasta oo dunida ah waxa uu cagta mariyay dhammaan boqortooyooyinkii maamuladii ka jiray dhulkaas waxa uu fidiyay duulaankiisii isagoo 100,000 oo Mongool ah u diray dhan walba maamulka boqortooyadiisu waxa ay ka jirtay inta ka dhaxaysa xidhifka bari ee badda Japan ilaa bariga Yurub ee Ukraine dhanka kale ilaa xidhifka Turkiga iyo afka hore ee Greega iyo dhammaan bariga dhexe ilaa Hindiya iyo guud ahaan dhulka Shiinaha iyo Bershiya inta la og yahay taariikhda aadamaha waa boqortooyadii ugu ballaarnayd ee dunida soo martay abid kana talisa dhul intaas leeg oo is haysta sidoo kale boqortooyadaas waa tii labaad ee ugu ballaaran ee taariikhda aadamaha soo marta kadib tii Britishka